xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa u digay madaxweynaha loo doortay Mareykanka Donald Trump waxa uuna u sheegay in kelinimadu aanay dan u ahayn Yurub iyo Mareykan toona. waxa uu sheegay in reer galbeedka ay soo food saartay caqabadii ugu weyneed ee dhanka nabadgelyada ee muddo qarniya soo marta intii uu ku jiray ololaha doorashada ayaa Trump waxa uu ku tilmaamay isbahaysiga militariga ee gaashaanbuurta reer galbeedka NATO mid hagaastay. wuxuuna sidoo kale sheegay in Mareykanku aad ugu fiirsan doono inta aanu wax gurmad ah u fidin haddii dalal ka tirsan gaashaanbuurta NATO lasoo weeraro haddii aanay dalalkaasi bixin qaadhaanka ku waajibay ay tahay inuu siiyo NATO. muuqaallo uu ku qoray wargeys Ingiriiska ka soo baxa ayaa Mr. Stoltenberg ku qiray inay jirto eedeymaha Trump soo jeediyay in loo baahan yahay in dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurta kuwooda ladani bixiyaan qaadhaan badan maadaama Mareykanku haatan bixiyo ku dhawaad 70% dhaqaalaha ku baxa miisaaniyadda NATO. Cabdiraxmaan Ismaaciil Ducaale, Dayaxa Media.